wuxuu yidhi muusan oran waalid baan ka ducaysan lahaa, xaj baan aadi lahaa, qur-aan baan akhrin lahaa, yani cibaadaan samee muusan waa soo guursan lahaa. waxaa weeye waa daacad inuu yahay marka horeba uusan ku gelin gabadhan guurka la yiraahdo interest zawaajul maslaxa dhaan carabta xataa dhalinta maanta ay joogtay cabsanayaan guurkii ka cabsi qabaan ay guurka ka cabsi qabaan. السلام عليكم halkaad naga daawanaysaan barteena YouTube yoolka rajada sidoo kale tan aad nagala socotaan Facebook yoolka rajada war u aada furka barnaamijkeeni talay tusaalo barnaamijkan waxa ku soo qaadan doonaa mowduucyo xasaasi ah oo u baahan in laga hadlo tusaalayaal laga bixiyo sidoo kale tan talooyin wanaagsan laga bixiyo barnaamijkani wuxuu noqon doonaa mid taxane ah aan u magacdaray talay tusaalo maanta waxa ku soo qaadanaynaa arrimaha qoyska wanaagsan iyo guurka wanaagsan barnaamijka maanta waxa marti uga ah Dr. Cabsalaan wax ku soo bartay jaamacadda Aynu Shamsi dalka Masar sidoo kale tan wax ku soo bartay dalka Turkiga ku nool dalka Turkiga sidoo kale tan falanqeeyo arrimaha geeska Afrika iyo arrimaha bulshada. Dr. Cabsalaan marhaban soo dhaw kule akh sadiiqaad ayaad u mahadsantahay waana dhawahay adiga iyo dhammaan bahda yoolka rajada barnaamijkan talo iyo tusaale waa ku dhawaay shukran. soo dhaw mar labaad iyo mar saddexaad barnaamijkani maanta waxa ku soo qaadanaynaa qoyska wanaagsan iyo guurka wanaagsan. Guurku haduu hagaago wuxuu dhalinayaa qoys wanaagsan, qoyska wanaagsanna hadii hagaagaan qoyskaasi wuxuu noqonayaa wuxuu ka qayb qaadanayaa horumarka bulshada laana bulshadu halkay ka bilaabato waa qoyska. Guurku maxaad ka oran lahayd maadaama aad kamid tahay aabaasha Soomaaliyeed aad soo guursatay soo dhaqatay aragnimo badan aad u leedahay barnaamijkani aad u faraxsan inaad ka qayb qaadato barnaamijkan guurku maxaad ka aaminsan tahay casrigan la joogo. بسم الله والحمد لله الذي جعل الزواج آية من آياته وكذلك نعمة من نعم الله وبعد. أستاذي هرتا جورك مركي لي رهدو حق شريعة وسيدا أن هذا هرداعيga aan ku sheegay ama xamdalada furfurashada آية من آيات الله آيات كميدة آيات كإلهي وحدانيديسا lagu garto bay kamid tahay waxyaabaha uu ku sifeeyay bay kamid tahay آية من آيات الله. sidoo kalena waa nicmooyinka Allah subhanahu wa ta'ala uu ku goladaysto bani aadamka kala duwan hadday yihiin dadka muslimiinta iyo dadka aanan muslimiinta ahayn afrikaanka carabaha aasiyaanka cid walbo Allah subhanahu wa ta'ala waa uu siiya oo qayb buu ka siiya oo waxay yiraahdaan xataa guurku waa qisma oo nasiib. taa waxaan oo la jeedaa guurkan uu ilaahay قرآن كيسا كشيغ ويري ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وآية وكت المامي وحكالوت المامي الله سبحانه وتعالى إن رجي وأبوري وكأبوري من نبي الله آدم عليه السلام حواء وكأبوري wuxuuna u abuuray labada dhinacba in ay iskamilaan. waxyaabaha ugu waaweyn uu ilaahay ku tilmaamayna waxaa kamid ah litaskunuu ilayha in aad ku degtaan ku xasishaan ku qanacdaan ku raaxaysataan guurkaas lamaanaha labada dhinacba. wuxuu sii raaciyay ilaahay wajacala baynakum mawaddatan warahma dhaxdiinana wuxuu ka yeelay rabbi naxariis iyo kalkacayl. ustaadii mawadda haddaan niraahno luqada carabiga waxa weeye naf loo huro yani cajiib. allah raxmaanka yani wuxuu ku tilmaamayaa qadiyada guurka in naf loo huro ay tahay. sidoo kalena Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamayaa in dadka aan waxba haysanin dhalinyarada oo maaragtay raba inay guursadaan uu yiri waalidiintana uu la hadlayo iyo dadka
wilaayada gabadhahayo wuxuu yidhi وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صحابتي مid kamid ah waxa uu yiri anigu haduu malakul maut halka iisoo istaago uu yiraahdo 3 maalin baad haysataa I think waxaan u maleynayaa dad badan inay xasuustaan hadda ka horna goobo sidan oo kale waan ka iri oo waan xasuusiyay mujtamaca wuxuu yiri muusan oran waalid baan ka ducaysan lahaa xaj baan aadi lahaa quraan baan akhrin lahaa yani cibaadan samee muusan waa soo guursan lahaa buu yiri wuxuu ku tusinayaa 3daas maalmood oo malakul maut haduu u imaan lahaa uu weydiin lahaa maxaad sameyn lahayd wuxuu yiri anigu waa guursan lahaa marka heerkaas ay salafkii horena ka joogeen waxa isoo xasuusisay Allah yarxamo Shamal Faaruq wuxuu yiri haddii aad hesho gabar saalix oo wanaagsan jannada adduunka waad haysataa waa taacadiina gudanaysa gabar fiicanna guriga kuu joogto jannatu dunyaa adduunyada jannadeedii baad ku jirta وفعلا الله نحرسه شيخنا شيخ عمر فاروق قبره سنة واسعيه مركا رجل واي والرجال قليل وحو أها سومالي وحيد عن رقوا كي هوري هذا النوى كي يرهدين الله يرحمه استاذي waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo guurka ka cabsi qabo inay guursadaan ka cabsi qabaan dhanka kale tan waxaa arkaysaa dhalinyaro badan aan u jeedin ama hankooda uusan ahayn inay guursadaan ayagoo ka soo qaadanayo dhacdooyinkan inta badan goobjoog u nahay furitaanka ama khilaafyada inta badan qoysaska dhex dhaco ama dhaqaalaha aadkan u tiro badan oo guurkii wuxuu noqday mid dhaqaale laga sameeyo ama mid aad u qaali ah arimahaasi maxaad ka oran lahayd horta khayr Allah ku siiyo akramaka Allah runtii waaya arag waa ahay in igu filanna cumri ilaahay waa siiyay wanasal Allah subhanahu wa ta'ala inuu ilaahay khaatimadeena wanaajiyo annaga iyo ummadda intana daawanaysa ummadda muslimiinta arigan aad baan runtii qalbiga uu ii taabtay in ay dhalinta maanta ay joogtay cabsanayaan guurka ka cabsi qabaan guurka ka cabsi qabaan aysan ku dhiiran karin guurka sidiisaba laba shay oo asal ah culimada saasay dhahay even nan muslimka xataa iyo dadka dadyowga kale oo aan caalamka kula noolnahay annagu dars wanaag baan naqaanaa dad muslimiinuna nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligiisii wuxuu muahadaad la gali jiray heshiis wada noolaasho wax wada qaybsi yani dadkii yahuud iyo dadaanan aan isku diin ahayn marka waxay isku raaceen adduunka caalamkan maanta la joogo laba wax yaa daacadnimada qofka muujinayso oo guurka ku aadan labada yahay qofku waxa weeye waa daacad inuu yahay marka horeba uusan ku galin gabadhan guurka la yiraahdo interest zawaajul maslaha daan carabta xataa marka soo koobo dadka cabsida ku jirto waxay arkeen walaashay gabadheena gabadhaada habaryarteen qaraabadeena wada la soo furay 14 jira waxa arkaysaa oo caruur ay ku xiisaan caruur and I don't want inaan erigan isticmaalo mar walbana media waa ka sheegaa garoob oo ragga kaliya Cabdisalaan aan garab noqonin labadaba waa dhigi karnaa single father iyo single mother marka way bateen meesha ugu badan oo burburka qoyska ka yimaadana waan arki doonaa waxa weeye qofkii yooban ehel u ahayn buugan xasuusi garaaso intaadan guursan yaa qore mubaarak haadi ilaahay khayras ya akhuna ani uma arkin qoraaga laakiin waxaan arkay yani buuga uu soo saaray I wish inaan macaahid iyo institute maxaan ku raada mu'tamaraad iyo maxaan ku raada seminaaro aan u qabano dhalinyarada guurka rabto in ay guursato intuuba shukaansi bilaabinba ana wish hadii ay golaan lahayd dawladda Soomaaliya inay manhajka ku darto form 4 markuu dhameeyo qofka sanad uu baranaya ama maada kamida maadooyinka qoyska wanaagsan marka Malaysian ku soo arkay maran aan u tagay maxaan ku raada shir waxaan arkay qofka marka uu rabo in uu guursado
kow horta trainingkaasuu soo qaadanaya in muddo soconayo I don't know maaqa ma sanad ba ma dhowr bilood ba dowladda marka qofkii certificate ka haysta macaahidaas oo soo mara trainingkaas sidee aaba ku noqon lahayd wiilkii la baro gabadhiina la baro sidee hooyo ku noqon lahayd waxa certificate uu la imaanaya dowladda budgetka arooskaas ku baxayo yani kala baro bar dowladda qabto waa research laga sameeyay dalka Malaysia markii uu batay burburka qoyska